baarlamaankii khaatumaanu nahayo dad sharciga lala tiigsaday nin lala tiigsaday oo markii lixaad ay sharciga lala tiigsaday oo baarlamaanku waa markii lixaad ee baarlamaanku ina xagaloola sharciga la tiigsaday waxaanu uun intaana loo waday duruuf adag baynu ku noolahay waqti adag baynu ku jiraa warbal ha layska dhabar adeeg war midda laygu anigu hadda kelmaddan waaba ka sasaaya war dulqaado war maxaan loo dulqaadan karin baa jira riwaayad baa laga dhigay magaalada Washington nin madow oo aad loo yaqiino heesaa ahaa riwaayadda wax ka dhigayay waxay ahayd inuu baastoolad soo qaato maran oo dhafoorka iskaga qabto oo ka bacdina halkan ku dhaco yidhaaho waa isdog dalaayo wax ugu riday noojee baastooladii bay xabad ugu riday suukeeb buu qabtay halkii buu ku dhacay oo ku fiddigay siyaasadda ina cagaluule waxay ka dhigan tahay ninka baastooladda ninkaa islahaa awal shilaa weyn baa tahay markuu luqunta saa iyo saa yidhaaho shilaa weyn baa tahay waxaa balaaya ka dhacday war xabad baa loo geliyey baastooladda ninka islaameed war ha ku yaabina maraysa hadday inala dhaafto war lacag baa inagu furan war waa loo soo dhiibay war waa loo soo dirayaa war xawaaladaha warkooda la ogyahay lacagtii waa la soo dirayaa hawshiina waa inagu furan tahay dee dadka in badan baa riwaayaddan sheegaya u malaynaya waxaanu inay riwaayad tahay war arrintanu riwaayad ka qoto dheer war arrintan aan iska qabanno soomaalidu maxay u odhan jirtay daarood maalin buu qabasho lahaa war nimanka kanu dhaqaalo badanna waa inagu furan yahay war saxaafad loo qaybiyey hawshanna waa u furan tahay war labada xaaji kala qabtay arrintu ku dambayn doonta laba maamul oo khaatumo ah oo buuhood la wada jooga iyo bahashan laga dhigayaa waxaanuna riwaayad inooga daran la'annu riwaayaddu war siduu sheegayey ninkii abwaanka ahaayee in axmed cali udhow war dadkan dhimanaya bilaash u dhiman maayaan war fidnada buuhoodle lala damcay waxay tahay meeshan kow horta khaatumo in hilfaha loo qaado xididada loo siibo meeshanuna inaan nabad lagu joogin waxaa dadka lagu xuuxiyaa somalilan baa noo soo gelaysa war somalilan idiin soo socota oo soo gelaysa intaanu wada hadalla naga dhaxeeyaan somalilan buuhood la soo gelaysaa ma jirto laakiin waxaa la rabaa fidna inta laynagu abuuro waynatu aynu isku weyraxno in iyakaan xabad ridin aynoo soo galaan abaalii ajarli inay noogu soo galaan war ilaahay caqli iyo xikmad haynagu marnayso war waxaanu riwaayad ma aha war waa ku gubanaynaa war sidana aynu jinac muxuu ahaa go-aan miyuu ahaa jinac duulaankii aynu isaga hor iyo daba ka wareegayno war magaaladanaynu iska hor iyo daba ka wareegaynaa war hargeysaynu iska hor iyo daba ka wareegaynaa war meesha waxaan maqli jiray bahalka amuurka la yidhaaha amuur waa taqaani maya kaanba raba waaba malowga waray malowga yaa soomaalidu waxay tidhahaa sunta bahalaha hoosoo dhani bahalkaa malowgay ka qaataan war bahalku waaba yaryahay war sunta meel aynu joognaba laynagu hayaa garowga weeye sunta laynagu hayaa malowga sunta aynu la ciirciirayno meesha inagaga imanaysaa waa garow war ninka qofka dadka dhulka u dhashay ee aan taa arkayni ilaah baaba indhaha ka ridi doona kaas war intaas
dhibaatadeenu waa taa war abtirsiino haddii kubadda la cayaarayo wardee kubadda looma cayaaro abtirsiino tumada laba tiim baa yimaado oo tirsan war siyaasad baa meeshan taalla war siyaasad laynagu mahalakayey oo mar walbana laynagu mahalakayo weeye war abtirsiina meeshan ma taallo war nimanka meelahan humbaalaynaya ee puntland lacagta ka keenaya kuwa riwaayadda dhigaya meeshan kumaba soo dhiiradeen haddaan magaaladan loo sii joogin haddaan lagu soo dhawaynayn haddaan qolalka madow loo diyaarinayo war bahashii laakiin ragannimadu meel aan waxbaba ka jirin lagama doono waroy nimankan hadda le maamul baanu noqonnay xamar baa laga soo diray waxaa laga maalgelinayaa garoowe waxa yaab leh telefoonnaday diraan hadda waxaa ugu badan hargeysa maamulka hargeysa iyo axsaabta hargeysa yay leeyihiin maamul cusub baanu nahay annakaa diyaara xaajadii waa soo afjaraynaa sida ugu dhaqsa badan baanu wada hadalladan laydinku mashquulinayo iyo nimanayo waxaanuba dhabba ka ahayn iyo nin macangaga annakaa haddaba soo afjarayna waa telefoonnaday hadda wadaan waa telefoonnada xalaa ugu dambaysay ay wadaan waroy nin baa waxaa la yidhi qol madow buu galo fartaagay markaasuu aroortii soo baxay kasaalayo fartaag magaciisa war ina fartaaggaasaa dhalay waroy arrinteenni halkaasay maraysaa war waxaan haddaynan ka tashan oo si nabada aynan isaga meel marin war faritogdheer bay kula xushaa waroy xoogaagan la daadaadinayo war waynu eedi waxaan hadalka kaga baxayaa war haddii aynu wada hadalladan aynu gallay war waxaan nagu kallifay xaaladeenna markaanu miisaanay meeshaanu maraynay yaa nagu kallifay cid kale oo diyaar noo noqotay inaanu wada hadallo maalintaanu go-aankaa gaadhaynay inaanu somalilan la hadallo maalintaana maantana ma hayno walla sanadka bacdina ma helayno garoowe kula fadhiisan mayso garoowe waxayba ku leedahay anaa kulay war gormaynaan ahaan jireen war yaa allihi allay ummadda rasuul war nimankaasu waxa la sheegaya laysu yahay anugu shaki baanba